بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada darsigeena maanta waxaan weli ku guda jirnaa barashada luqadda carabiga buugga saddexaad ama tacliim اللغة العربية كتاب الثالث الدرس الخامس والعشرون عشرka shan iyo labaatanaad جزاء الظلم casharkan wuxuu ku saabsan yahay dulmiga dhibaatada uu leeyahay ama jazihiisa الجزاء من جزء العمل waaye hal جزاء الإحسان إلى الإحسان marka haddii qofka dulmi u geysta asaga unbay ka go'an tahay sidaa daraaddeed qofka haddii wanaag u geystana wanaag unbuu helayaa halkani waxaa ku sheekaysanaya marka canugii hooyadii xadiid ayuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nooga sheegay haweeney dulmi ka gashay bisad marka bisad darteed loo cadaabay isla qisadan ama sheekadan aanu bilaaweyna dhammaadkeeda inoogu imaan doontaa insha allah waladkii baa hadlay wuxuu yidhi yaa ummii hooyo wajadtu fi طariiqi waddada waxaan ka soo helay buu yidhi hiratan bisad marka hira iyo qida waa isku micno labada waa bisad ama yaanyuur hadba saa u garanaysid ama mukulaal jamiilatan jiddan aad u qurxoon buu yidhi jamiilatan jiddan aad u qurxoon hooyadiiba marka waxay tiri ayna hiya al'aan hadda aawe way tiri bisadi aaway canugu marka wuxuu yidhi wadactuhaa fi lqurfa waxaan dejiyey buu yidhi qolka wadactuhaa fi lqurfa wa aqlaqtu albaaba calayha jayidan albaabkana si wanaagsan baan ugu soo xiray qolka ayaan geliyey albaabkana si fiican baan ugu soo xiray buu si aysan u soo bixin hooyadiiba marka waxay ku tiri wahal wadacta laha alطacaam waasharaab miyaad siisay bay tiri cunno iyo cabitaan bisada maadaama aad guriga intaad ku xirtay albaabkana ku soo xirtay miyaad siisay bay tiri cunno iyo cabid canugii baa wuxuu yidhi laa yaa ummi hooyo maya laa yaa ummi maya hooyo sawfa udcimuhaa wa asqiiha dib dambe ayaan ka cunto ka siin doonaa buu yidhi kana waraabin doonaa goormee cindamaa arjicu min almadrasati in shaa allahu tacaala markaan ka soo laabto madrasada hadduu alla idmo xilligaas ayaan cabitaan iyo cunto labadaba siini doonaa buu yidhi hooyadiiba marka waxay tidhi yumkin waxaa macquula annaha jaa'ica al'aan haddadan inay baahan tahay waxay tidhi yumkinu waxaa macquula waxaa suuragal ah annaha bisadu jaa'icata al'aan waqti xaadirka inay baahan tahay wama akaltu shayan amse shalayto ay waxba aysan cunin inay bisadu baahan tahay oo shalay waxba ay cunin baa macquula bay tiri maxaa yeelay dadka waaweyn wax aysan caruurta garan bay gartaan canugu baa wuxuu yidhi satasbiru alhira bisadu way sabraysaa buu yidhi way sabri doontaa satasbiru way sabri doontaa buu yidhi alhirata bisada ilaa an arjica ilaa aan ka soo laabto bacda duhurka dabadii ilaa duhurka dabadii aan ka soo laabta way sabri doontaa buu yidhi macnaha cunid iyo cabid way ka sabri doontaa hooyada waxay tiri laa yaa waladii maya wiilkaygiyow qad tamuutu haadihi alhira wa hiya maxbuusatun bay tiri qad tamuut way dhimin kartaa buu yidhi way dhimin kartaa bay tiri haadihi alhira bisadan walxaal hiya ayadana maxbuusatun xabsi ay kugu jirto oo wayucadibuka allahu bisababiha yowma alqiyaama sababteeda ayuu alla subxaana wa tacaala maalinta qiyaama kuu cadaabi doonaa qiso ayay u keentay marka intaas markay tiri qisadii aanu sheegayno xadiidka rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam uu inoo sheegay iyo halkan qayb ka mid ay kasoo guurisay waxay tiri qad dakhalat imra'atun annaara bisababi hiratin xabasathaa xataa maatat subxaana allah qad xaqiiqe dakhalad imra'atun naag ama haweeney ayaa ku gashay bay tiri annaara naarta oo maxay ku gashay bisababi hiratin sababta macnaha qita ama hira bisada sababteeda bisadaasoo xabasathaa ay xabistay xabsi maxaa loo yaqaanaa xabsi waxaa loo yaqaanaa wixii meel inta la geeyey lagu xira aanan bixi karin aanan meesha ka bixi karin xataa maatad bay tiri ilaa ay ka dhimata bisadii ilaa bisad ay ka dhimata ayay halkaas ku xabisneed oo sabab maxay u dhimatay
laa hiya adcamathaa wasaqathaa waxay tiri laa hiya adcamathaa cunto ma aysan siinin wasaqathaa mana aysan waraabin shaygan waa xayawaan waa noole haddii cuntii cabidba laga jara laazim markaa dam-oon iyo baahi unbuu u dhimanayaa marka waxay tiri cunto ma aysan siinin biyina ma aysan siinin koow walaa hiya tarakathaa kama aysan tegin ta'kul min xasharaati alardi binafsihaa duurkaas cayaanka macnaha alla subxaana watacaala ugu talagalay ha ka soo cuntee maxaa yeele bisadahan aan arkayn oo hadda adduunka aan joogno la jooga bisada keli maahane xayawaanaadka badankooda waxaa weeye duurka ay kasoo qarabtaanoo wixii alla subxaana watacaala arsaaq ugu talagalay ayay ku nool yihiin marka labo mid ma ay samaynin bisadii way xirtay hadday xirtay xiritaanka dhib ma lahane in halkaas ku quudiso oo cunid cabitaan ay siisayaheed ma aysan samaynin kow midda labaadna waxaa la yidhi faraha kama aysan qaadin duurkeeda xasharaadka iyo waxa alla subxana watacaala ugu talagalay ha ka soo cunte sidii bay ku dhimatay marka sidii baa ayadana naarta ay ku gashay oo lagu cadaabayaa subxaana allah waa arrin dhibkeeda leh bisida hadda maalmahan dadka inta caqli u saaxiibka maahane dadka aad uma daryeelaan dad baad arkaysaa iska dilaaya dad baad arkaysaa nabar xoogli ku dhufanaaya marka waxaa weeye waa masaakiin waa bisa abu hureyra maxaa loo yidhi hureyra waa maxay waa bisad macnaha bisid aabaheed baa la yidhi bisad ayuu aad u dhaqaalayn jiray waladkii marka wuxuu yidhi yaa allah calaamatu tacajub ayaa saaran macnaha wax marka aad la yaabto oo hadal filinwa marka lagu sheega ayaa calaamadan la isticmaalaa wuxuu yidhi marka canugi saudcimu lhiratu bisada waan quudin buu yidhi wa asqiiha al'aan iminka ayaan waraabin wa ukhrijuhaa waana ka soo saarayaa min alqurfati qolkii walaa axbisuhaa mana xabisaya buu yidhi bacda alyowmi maanta kadib maxaa yeele hadalka hooyadii ayaa taabtay casharkeen maanta inoo joogo intaan kulmi doono casharkana kan xiga wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu